السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإن سلامي ميل كستا جوكتان كسو دوادا channel كينا Somali Food Academy maanta waxaan rabaa inaan kariyo chicken kaas waa chicken simple ah oo la fry gareynayo la bake gareynayo insha Allah haddana ila arkasaan u karinayo insha Allah halkan waxaan ku shubanayaa waa caano garoor iyo caano caadi fresh isku jira buttermilk al dhahaa chicken ka badanaa loo isticmaalaa caanaha caadiga ah oo garoorka oo boxyada ku jira iyo waxaan isku daray caanaha freshka caadiga ah markii la isku keeno culayskii way ka ba'ayaan marka waxay isku bedelayaan buttermilk waxaan ku darayaa oo qaadadan iigu jira paprika waaye paprika waxa waaye spices yaday ka mid tahay waxaan kaloo ku darayaa chicken masala qaadada yar aan u isticmaalaa all waxaan kaloo ku darayaa coriander ama kabsar waa kabsar shiidan oo la qalajiyay waxaan ku darayaa qaada yar ayadana oo xawaash ah waa xawaash la shiiday huruud qaada yar waxaan kaloo ku darayaa qaadada yar halfkeed oo sanjabiil shiidan oo qalalan waa sanjabiil waxaan kaloo ku darayaa heel hal qaada asagana wax yar dhiman heel shiidan hal qaada yar oo cusbo ah waxaan kaloo rabaa inaan ku miiro oo ku daro lindanaan jab yar ah lindanaanka chickenka ama doorada waxay siisaa extra tasty soo hoos waxa iigu jiray waxa waaye caanihii garoorkii kuwii freshka spiceski cusbadii lindanaantaasna waan ku miiray halfka ah khal kuma daray because lindanaan aan ku daray iskuma daray labadooda intaanan isku walaaqayaa ilaa spiceska iyo caanaha isdhex galaan si fiican aan iskugu walaaqayaa haddana waxaan ku gurayaa chickenkii waaye chickenka intaan rabay inaan kariyo aan ku gurayaa chickenkan waxaan rabaa meel kasta inaan spiceskaas iyo buttermilk iswata oo buttermilk oo ah caanaha garoorka iyo caanaha freshka la isku daray inaan meel kasta ka mariyo dhinac kasta ay ka gaaraan inay jilicsan tahayna waa ujeedaan ay biyo tahay because waxa keenayso waa caanaha freshka ah iyo garoorka la isku daray soft ay noqdeen waa kana almost waan dhameeyay haddana waxaan rabaa inaan ku daboolo bacdan on meel dhigo fridge-ka rabaa inaan geliyo 1 hour ilaa 2 hal saac ilaa 2 saacadood hadduu qofka degdegsan yahay hal saac waa ku filan tahay 2 saacadood haddaa dhigtidna maasha Allah kaba si fiicanbo si fiican u marinate garoobaysaa marinationka u qaadanaysaa ama u radaysaa chickenka iyo spiceski halkan waxaan saartay waxa waaye saliid caday waxaan ku gurayaa chickenkii oo aan rabaa inaan ku shiilo chickenkan marka aan shiilayo ma rabi inay bislaato ilaa gudaha only waxaan rabaa korka kaliya inay brown ka noqoto labada dhinac ma rabi inay iga bislaato gudaha because ovenkan gelinayaa saa darteed ovenka dhamaystiraya waa kana dhinacii hoose hadda way ka guduudatay way ka shiilmatay dhinacii kore ayaan hoos marinayaa marka soo asagana u guduuto haddana waan ka gurayaa saasay ku soo baxday kor iyo hoos waxay noqotay brown waa ujeedaan maasha Allah ku soo baxday waa kaasa crunchy brown bankan waxaan rabaa inaan ku shubo buuro ama butterkan waan dhalaalinayaa inuu ii dhalaalaan rabaa
asaga dhan uu iigu dhamaado meesha waxa waaweynka dhan ay dhamaadaan dhalaalaan. saas ayaan u walaaqayaa ilaa ay iga dhalaasho bataga ama burada uu dhalaalay. waxaan ku darayaa hal qaado yar oo chicken masala ah, hal qaado yar oo paprika ah ayadana. intaas iyo batarka ayaan haddana isku walaaqayaa. waxaan ku darayaa waa vinegar ama khal, waa khal. khalkaasaan ku shubayaa dhacaan si ugu noqdo. waa isku soo kareen khalkii iyo spiceski iyo batarkii. haddana waxaan rabaa inaan ku daro chickenkii aan marinate gareeyay, dhacaankii ka haray chickenkii wixii aan u qasay caanihii iyo spiceskii isku jiray waaye. markaan chickenkii ka bixiyay oo aan shiilay yaa dhacaankii haray waaye. dhacaankaas ma daadin, waan ku shubtay because asaga xataa spices iyo everything ku jiro. aad ayuu u fiican yahay, tasty waaye. waa kaasaa uu gursaday biyihii badnaa saasuu noqday. haddana waxaan rabaa inaan ka damiyo dabka. waa ready. halkan waxaan soo qaatay weelkan, waxaan ku ridanayaa chickenkii aan kusoo safaa aan soo shiilay oo aan soo marinate gareeyay. chickenkan waxaan rabaa sooskan inaan mariyo. brushkaasaan isticmaalayaa. waa sooskii aan soo kariyay, wax kale ma aha, sooskii aan soo kariyay waaye. chickenka dhan aan ku brush gareynayaa oon marinayaa korkaan. dhinacan koraan marka hore si fiican uga marinayaa. xabadii ugu dambeysay hadda marinayaa. dhinaca kalean u rogayaa. dhinacaana waxaan rabaa sooska inaan isagana ka mariyo. labada dhinacba waan marinaa. kor hadda waan ka mariyay, haddana dhinacaanaan u rogay. dhinacaana hadda waxaan ka marinayaa sooskii. waan mariyay kor iyo hoos labadaba. haddana waxaan gelinayaa ovenka 15 daqiiqo ku jireysa, then waan ka soo bixinayaa. waan ka soo bixiyay 15 daqiiqo ku jirtay. haddana dhinacaan baan mar kale ka marinayaa sooskii. 15 daqiiqo bes bay ku jirtay, waan soo bixiyay sooskii. haddana dhinacaan ka marinayaa. 30 daqiiqo la rabaa ovenka inay ku jirto, marka 15 waxa waaye hadda already way ku jirtay, waan ka soo bixiyay. 15na haddaan ku celinayaa marka aan sooska mariyo. dhinaca kale aan u rogayaa, haddana aan asagana sooska marinayaa. labada dhinacba markasta waa la marinayaa, labada dhinac. chickenkan waxaa la dhahaa magaciisa chicken porcina la dhahaa. waa la fry gareeyaa waana la bake gareeyaa, labadaba waa la iskugu daraa. it's a very tasty, uu macaan yahay, tastigiisa caadi ma ahan. hadda dhinacii kale aan u rogay. waxaan marinayaa sooska intii hartaan marinayaa. 15 daqiiqo kalean ku celinayaa ovenka because dhinaca kale oo aan rognay 15 daqiiqaan soo kariyay ovenka. haddana kan 15 daqiiqo kaliyuu ku jirayaa. waana ka soo bixinayaa. markay ka soo baxdo aan isla arkaynaa si ku soo baxdo insha Allah. akhwaati waan ka soo bixiyay, waa taasaa chickenkeeni saasuu ku soo baxay, very tasty, qurux maasha Allah. daawasho wacan meel kasta joogtaan. kusoo dhawaada channelkeena. haddaa ka hesheen like saara, haddaad subscribe ahayn oo cusub tahay subscribe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.